waxa weeyaan magacaygu marka ugu horeysa aadan garow cali waxaana ku magac dheeray baante waxa weeye dadaydu waxa weeyaan 66 sannadood geelaa markii aan soo qaaday waxaan ahaa 3 iyo 3 jir baan ahaa 3 iyo 3 sannadoodna geelaan hayay geelaa 3 iyo 3 sannadood aan hayay tiradiisu waxay ahayd 7 iyo 20 halaad 3 imaka dhaleen 7 ay riman tahay waayahay markay sidaa tahay berigaa aan geela soo qaaday adduunyada waxaa ka jirta wax colaad la yidhaahdo oo dadku la isma bixinay waxa igu kalifay geelaa inaan soo qaado 2 iyo 50 halaad oo annagu aanu leenahay aabbahay leeyahay ayay qaadeen dad waa halka Soomaalidu ka maamaado ficil habartaana uu ku geeyaa ficil baa geela qaadidiisa ay geeyay waanu soo qaadnay waxa geelaa lahaa deegaanka awaare waxaanu ka soo qaadnay meesha la yiraahdo dayr ninkii geela lahaa ayaanu ku qabanay maalintaa waanu bixinay ninkaa iyadoo aan dadku isma bixinayn baan haddana bixinay annagu ninka geelale waanu isnaqaanay isku deegaanna waanu hayna waanaanu wada joogi jirnay waanaanu wada qayili jirnay waqtigaa dabadeed dadku waxaad wada qayili jirteen waqtigii geela aad ka dhacdeed geeliisa haysatay dabadeed baad istaqaaneen oo wada joogi jirteen waanu wada qayili jirnay waanaanu isnaqaanay awaarana waanu wada joogi jirnay marka ninkaasi oo uu ku garanayay inaad tahay uu garanayay inaan geeliisa hayo horena markii intii aan geela qaadinna waanu isnaqaanay markii aan geela soo qaadina de waanu sii baranayba waanu wada qayili jirnay awaaraanu wada joogi jirnay isku deegaan baanu ahay haddii beedankeeda leeyahay sidaas ayaanu isu naqaanay dabadeed waxaan ka fikiray ninkaas mayaanu geeliisa kugu qabsanayn markaa ama isu markaa waqtigaa waxba la iskuma qabsan jirin oo colaad baa taallay naf iyo maal midna la isuma qabsan jirin markaa waa la kala goosan jiray geelaa dabadeed 3 iyo 3 sannadood aan hayay waxaan ka fikiray adduunyada in laga tagaayo oo qofna aanu baaqi noqonahay waxaan ku fikiray dabadeed inaan geelaa ilaahay dartii u celiyo iyadoo cidii iman iyadoo lay ergeyn iyadoo aanay cidoodo noo celi ayaan damcay inaan ilaahay dartii u celiyo waa iga soo goday ilaahay dartii baan u celiyey cidi waxa kugu siiso amahan lagugu ammaano umaan celin ilaahay dartii ayaan u celiyey markay sidaa tahay markii aan damcay geelaa inaan celiyo ciddii geelaa lahayd fariin baan u faray geelaasi weyga celis baan idhi soo doontaan idhi dabadeed sidii baa loogu sheegay nimankaasi dabadeed way iga raageen way rumaysan ba waayeen geelaa in loo celinayo ama saaka geelini baa wax ka nooliyey way rumaysan waayeen bil iyo 2 iyo 10 habeen ayaanu intaa telefoonka ka wada hadlaynay oo laha iga soo doonta geela way ima waayeen way soo dhaqaaqi waayeen dad habeenkii dambaa fikiray waxaan ku firay geelaa haddii ay markay nimankii soo doono waayeen inaan maxkamadda degmada Daro ku shubo ayaan goostay waayahay dabadeed iyagii baan war ku celiyey waxaan ku idhi aroorta marka laga bilaabo geelaa maxkamadda degmada Daro baan geenayaa haddaa wima weydii maalintaasay ayay soo amba baxeen way noo yimaadeen waanu fadhiisinay waanu soornay haddii beedankeeda leeyahay dabadeed markii aanu soornay tirada geela waxaanu haynay baanu u sheegay waxaan ku idhi geelaa 3 iyo 3 sannadood aan hayay wixii naga baxay ma noo xalaalayseen waanu idiin xalaalinay bayna aakhiriya adduunka midna waa laydinma raaco waanu idinka saamaxnay wixii geelaa idinkaga baxay waxaanu noqonnay dad walaalaa si wanaagsan baanu u kala baxnay ducaanu ku kala tagnay haddii beedankeeda leeyahay
iyagoo masuuday nimankaasi laga tageen markay sidaa tahay dadka walaalahayaa waxaan ku guubaabinayaa dhac badan bay kala haysaa intanoo keliya maaha kumaraad baa la kala hayaa waxaan dadka walaalahay ku guubaabinayaa wixii ay kala hayso ee dhaca inay isu celiso oo islaamnimo iyo walaalnimo ay isugu celiso oo qof kastaaba aakhiradiisa uu u tudho ayaan dadka walaalahay ku guubaabinayaa